waa maalin iyo sanad kale oo qiimo leh oo ay Soomaalida ku dhaqan magaalada Gothenburg ee wadanka Sweden ugu dabaaldegeen munaasabada 1 Luulyo ee 63 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada koonfureed xorriyadda qaateen iyo Israaciil labada gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xafladan oo lagu qabtay holka shirarka xaafadda Hamarkulan ayaa waxa soo abaabulay mid ka mid ah jaaliyadaha ugu waaweyn ee ku dhaqan magaalada Gothenburg. waxaa halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyay waxgarad abwaano iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada siyaasadda ee gobolka Gothenburg. Hambalyo maalinta qaranka. Isku-tagii Soomaaliyeed ee waqooyi koonfureed ku midoobay. Marka waxaan jeclaan lahaa runtii in maadaama aynu Soomaali nahay maalintaan xusayno inaynu u tahay u sara kacno bal aynu qaadno Soomaaliya tooso isku tiirsana dadku waa codsiintaas way cod maxaa noo maasantii Soomaaliya tooso munaasabadan oo ugu dambeyntii u badnay suugaan iyo heesa ayaa dadweynihii ka soo qayb galay waxay aad uga maqsuudeen siday maalintaasi qiimaha leh u soo dhaweeyaan uguna dabaaldegaan iyaga oo dalka iyo dadka u rajeeyay nabad iyo barwaaqo. السلام عليكم سومالي دمانتين همبليو waxaa ku jirnaa toddobaadkii xorriyadda ummadda Soomaaliyeed kooga Luulyo waa maanta waxa ku dabaaldegaynaa dalka Sweden farxad waxa halkan u qaybsanaa familkeyga dhamaan Soomaali Maxamed waxaan idin leeyahay hambalyo